haddaad maqli jirtay gabadh baa nin lacag ka cunta oo tidhaahda alaab yar baa iga dhimana walaa $5 ii soo dir waxaa soo baxay rag iimaanka u dhacay oo hablahaba ka daran oo maqlay dumar baa lacag laga cunaa wuxuu ku odhanayaa walaal gaadhi baa meel igaga jabay $10 ma kaa heli karaya wuxuu ku odhanayaa taa aan la sheekaysto $20 baan ka cunay taa 40 baan ka amaaday calaamadaha aad ku garanayso gabadhay ragga waxaa ka mid ah bahala yaryaroo eerifoonnada lagu rito oo yaroo siiba lagu halkaa ku xidhan yahay casarkii buu soo baxaa tima jilicsan buu leeyahay 24 sac moobil buu ku fooraraa haddaad aragto gabadha iska ilaali maqaaxiyaa meel koonaa buu fadhiistaa ragga kale ma raaco bulshaawi maaha waa muudle 24 sac moobil buu ku fooraraa dumarkan buu lacagta ka qaadaa hablow haddaad aragtaan ragga noocaasa baloog saara wax badan baad tidhaahdeen dumarkaad ku foorarisay loofka xaasidnimo u saara waxay ku odhanaysaa nin wanaagsan baan rabaa naa kan aad tagsigiisa saaran tahay waayo kan cashada kuu qaadaya waayo kan aad jaamacadda ku geynaya waayo kan habeenkii 8 saac kuu sheekaynaya waayo wadad xunba kan aad tagsigiisa saaran tahay waayo ka jaamacadda kuu qaadaya waayo kan maykaabka bixinaya waayo kan mar walba aad la socotid ee 8 saac kuu sheekaynaya si qalbigaagu nadiif u noqdo waayo kan haddaad ku tahay 10,000 ii soo dir kuu soo diraya waayo rag nin qof wanaagsan baan rabaa kani muxuu yahay walaal kan haddaad tidhaahdo 10,000 ii soo dir markiiba kuu soo diraya waayo ka ifoo jirka ku soo shubaya waayo kan wanaagsan aad doonaysaa ma sacuudigu joogaa ma caddaanba jacaylka habeen kasta kuu soo bandhiganaya ee maasajyada qoraalka ee loofafka kuu soo diraya waayo mina wanaag ahayn qofkan wanaagsan aad doonaysaa xaguu joogaa baqurguu joogaa war xaguu ku maqaya haddaad doonaysa inaad guursatiin ninow waxaad guursataa gabadh buuran oo kuusan oo gaaban oo malaba ha isku guursan mid dhuuban oo caataa ha isku guursan mid dhuuban waayo ta buuran hadday 8 habeen qaddo oo gurigaaga joogto laga fahmi maayo inay qadday laakiin ta kale waxa la odhanayaa way ku dalbakhtiday maalintii loo guuriyey sidan may ahayn dhibaatay kuu keenaysaa khalkhal bay ku gelinaysaa gabadha buuran guursada faa'iidooyin kaloo badanna way leedahay haddii ay champion league noqoto iyo haddii kalaba marka waxaan leeyahay gabadh buurani waa malab hala guursado siin buurbuurkiya balballa arkay ka shidan tahay gabadh caataa isugu dhowaan way ku ceebaynaysaa hal habeen hadday qadar reerkooda waa ku soo wacay waxaa odhanayaan gabadha xanuun baa haya hal la geeyo farmasi ya marka hal iska ilaaliyo baan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabadha aad la sheekaysanayso saaxiibadaheed iyo hablaha ay saaxiibada yihiin ha baran sababtaan kuu sheegay beri dhexdaasan gabadh la hadli jiray oo gabadhii baan isku dhacan kuwii kale ay soo caayayba naftaa lay keena wax xanuun baa tahay mid baa xitaa ana waddadooda hormaray maalindhooda guti dooh naamaadaan kula sheekaysan jiray midda kale gabadhaasaan la hadli jira haddaan isku dhacno oo calaf ka adeegay dee aniga xaggaad ii soo caayaysaan 3 ay saaxiibo ahaayeen baa soo caayay hadda beriga hore dumaashi qaal waxbaa saa lay odhan jiray inaad arkaya mid baan xitaa profilka u saarnaan jiray mar allaala gabadhii ma isku dhacnay aniga baa lay soo saft naade idinka in lama hadli jirin inantaa kale la hadli jiray wal inantiina waan isku dhacnay calaf baa ka adeegay marka waxaan leeyahay yaan la baran gabadha saaxiibadeeda hadii lagu baro xitaa marka ay ma garanayaan iyada waayo iyagaan wici jiray waxaan odhan jiray gabadha maxaa ku dhacay waa ka wareysan jiray ma iminka iyagii baa saf ii soo fuulay gebigoodiba way igu daacay waxaan maqli jiray qofka way ku daacay